gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa faahfaahiyay khasaaraha cadawga lagu gaarsiiyay dagaalkii Awdheegle. Dhakhaatiirta gobolka Mudug ee Puntland oo maanta shaqo joojin lagu sameeyay kadib dil xalay loogu geystay waqooyiga magaalada mid ka mid ah dhakhaatiirtaas. xubno xildhibaan ah oo isugu jira heer federaal iyo heer deegaan oo ay weheliyaan maamulka degmada Harowo oo soo kormeeray qaar ka mid ah mashaariicaha ay dawladdu ka wada deegaamadaasi. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya oo sheegay in talisku diyaarinayo goobihii lagu xiri lahaa maleeshiyaadka kooxaha al-shabaab ee dagaalada lagu soo qabtay. ana wanaagsan daawadayaal waxaa la soo gaaray warkeeni fiidnimo. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya oo sheegay in talisku diyaarinayo goobihii lagu xiri lahaa kooxaha al-shabaab kadib dagaalka marka lagu soo qabto. haynta maxaabiista hadayna jirin ciidankan ma ahaanayna ciidamo kale aan aadayna taasna waa inaad ogaataan. marka hadda ma soconay asluubtanadaan joognaay intii balna looga yeeray xaaladdu naga soo gaaraysa hadda soo baxna lama dhihine waxaan sugaynaa maxaabiistii cadawga ah oo alqaacidada ahayd oo dalka dhibaataysay oo la soo qabqabtaan sugaynaa meeshii lagu xiri lahaana waa nagala rabaa. hadhow ma dhalan doonto meel lagu xiro ma hayo iyo sheekadaas ma soconayso mid soconaysa maaha. maanta naf badan baa loo huray rag badan baa ku leeday rag badan baa ku dhammaaday haddana kuwa kala diyaar ah inay ku dhammaadaan annagana kuwaas un baan ku abtirsanaay la socda afarta ciidanaan ka midnahay nin walba ku talagal shaqadana nugula ogyahay waxaa iska imaan karta caws weyne imaada marka nin walba buudkaaga meel ha ku yaal. waxaa la doonayaa dalka oo dhan inaan ama dhammaan ama shabaab laga xoreeyo. ballanku waa kaas madaxweynihii dalka u sarreeyay wuxuu fadhiyaa sida la idin sheegay furunta dagaalku hogaaminaya asaa taliye ciidan awalba ahaa haddana asaa hogaaminaya ayada oo nin kastaba ama askari ha ahaado ama mas-uul ha ahaado ama shacib ha ahaado maanta ay ummadda Soomaaliyeed ka go'an tahay meel kastoo ay joogto dibad iyo gudo in laga magaranaysaa laga saaro dalka Soomaaliya alqaacido. marka haddee sheekadu meeshaasay maraysaa waxaa nagala rabaa taageero xoog leh inaan afka ku taageerno wax walba inaan ku taageerno afka ugu daran shabaab ciidankiisii annaga ahayno soo ma ogidin ma ku darteen qorshaha ciidankii shabaab annaga ahayn way og yihiin waa ciidankii ay tababarteen oo maanta u dagaalami lahaa rag baa soo qabtay annagana waa ahayn taasna ku xisaabtama. maxaan doonaynaa habeen iyo maalin inaan shaqayno shaqadaasna aan ku darno inaan ilaalino si dhaba wixina loo dhiibay ammaanadaha inaan u ilaalino taasna aan ku darno. okay habeenkii saraakiisha waxaan leeyahay habeenkii ha seexanina ha hurdina xogaa seexa ilna ku seexo ilna ku soo jeed. xubno xildhibaan ah oo isugu jira heer federaal iyo heer deegaan oo ay weheliyaan maamulka degmadaasi ayaa soo kormeeray mashaariicaha ay dawladdu ka wado deegaankaasi. joogna waa xarunta degmada Harowo ee magaalada Darwanaaje taasoo halda dhagax dhigo madaxweynuhu dhagax dhigay wadadan oo ugu baahnay bulshada iyo isku socodka bulshada iyo magaalada Jijjiga ee dadkuna aad ugu baahnaayeen inay dhaqaalahaan iyo khudaarta degmada Harowo ka soo baxda sida ay u gaari lahayd degmada Harowo wadadan ay u noqotay wadada dhagax loogu dhigay ama ka saacideysay dadka isku socodka bulshada yareena lahayd maxay hayday sixir bararka khudaarta ee magaalada Jijjiga oo madaxweynuhu laba bilood ka hor dhagax dhigay kaasoo hadda xafiis ahaan iyo contractorkiiba hadda u dhamaatay hawshii xafiiska marka ay khusayso ilaa imikana hadda aan la bilaabin mashruuc uu taagan yahay taasoo iga dambaysa hadda ay tahay inay sayladii khudaarta loogu talagalay magaalada Harowo taasoo shaqeynaysa loogu talagalay in khudaarta ama ganacsatada khudaarleyda ay ka imanaysa magaalada Jijjiga iyo deegaanka kaleba inay u adeegto iyo beeraleyda magaalada Harowo si ay uga ay u noqoto sayladii isku xireysay
ay ilaa imika ay u xaniban tahay isteelada inay shaqeyso wadadan darteed wadadan oo muddo ka hor hawsheeda ay dhamaatay oo xafiis ahaan u dhameystireen marka xafiiska LRB-ga waxay khusayso ilaa hadda aan sababta aan loo bilaabin hawshan ay tahay iyo bahwadaagteedaba waxaan ku wargelinaynaa in mashruucan wali ilaa hadda uuna dhaqaaqin wadada ilaa imikana ay sidii uu madaxweynuhu dhagax dhigay oo ay tahay marka bahwadaagta xafiisada ay khusayso waxaan ka codsanaynaa in si dhaqsi ah badan leh loo bilaabo maadaama dhaqaalaha bulshada iyo isku socodka bulshada kor u qaadi doonto ka degma ahaan ay u soo kordhin doonto dakhliga degmada maadaama isku socodka bulshada ee caasimada iyo degmada la furo ay furi doonto marka waxa weeyaan caqabadaha ugu daran hadda waa daahitaanka uu mashruucu naga daahsan yahay iyo kaanaaladaas iyaguna dib xilliga roobeedka nagu hayo qaab dixeed noqonaya marka wixii imika dhibaatada noogu daran waa inta marka dadkii ka faa'iideystayaasha ahaydna waxay sugayaan in loogu rido bamkii iyo in shaqadii socotay dhaqaaqdo ka faa'iideystayaasha dhulka inta ay ka faa'iideystaan xataa waad aragtaa hadhuudhadii iyo wixii laga qodi jiray lagama qodin dadku waxay ka qodan jireen galay iyo arabixiba laga qodan jiray dhulkan intan mashruuca laga bilaabay shaqa ka socota dadkii xataa sidii qaabkii roobaadka loogu beeranayay wali laguma sii beeranin natiijo dhow un bay dadkii eegayaan marka daahitaankaasi waa dhibta koobaad ee ka jirta intaas oo qoys 120 kiilo maxay ahayd hektar dadku faa'iideysan jiray xilli roobaadka laga faa'iideysan jiray laakiin imika rajadan noo soo dhawaatay mar walba soo dhow marka cidna waxba kama qado kanaan ku furaynaa riiga lagu talaalay intaasan had iyo jeer isna dhahnaa marka dhibaatooyinka jiraayo inta dhakhaatiirta gobolka Mudug ee Puntland oo lagu sameeyay shaqo joojin kadib xalay dil loogu geystay waqooyiga magaalada mid kamid ah dhakhaatiirta nagu maanta waxaan noqonay beel baan noqonay dhakhaatiirteen kamid ah beelaha Soomaaliyeed sidii beeshii baan u direernaa maanta kadib dhakhtarnimo xaggeenu iska dhigayna waa leeno soo dhacay waana arrin waxa weeye haddii aynaan ka dagaalamin khatarteeda kule mujtamaca soo socda gaalada waxay tiraahdaa barkii waxa dhacaan waa maalin madow annaga teenu maalin madow ma aha wax weyn baa dhacay oo caqligu diidan yahay oo aan hore u dhicin ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa gacan ku dhiiliyaashii in la soo qabto oo cadaaladda la hor keeno waana deeqaysaa madaxweynaha ee dowladda Puntland waxaanu leenahay dhakhaatiirteedu arrin ugu baa nagu dhacday qoladeeda beeshada dhakhaatiirta arrinta ugubka waxay dhashay ninna waa dhintay caruur iyo reerina waa ka tegey waxaanu ka rabnaa dowladda magdhow baan u rabnaa caruurta u rabnaa magdhow badan baan dowladda uga rabnaa caruurtii korintooda waxbarashadooda anagana saaranta الدكتور زكريا وهو خسارة للمدينة هذه وكل شخص عرفه يدرك أنه خسارة كبيرة ليس فقط لهذه المدينة والله الشاب محترم وهو خسارة للصومال هذه السابقة لم أسمع فيها نحن عاشرنا الحرب في سوريا الأطباء كان لهم وضع خاص وأهري النفتوضة إنا أيها واحترام ما أنت إنا أرنت أيها كسور لابطه وإن نوطو إنا أيها إلى الله هذا معناه وحيتها إن برشدي وحو أيها مركز دم باللوايو وإن نوطو ميال مقارنيسا لو دينتو caafimaad darro awal dagaal bay ahayd hadda caafimaad darro u soo raacdo dagaalkii iyo dhibtii badnaydo jidheedo dhacaysay inay hadda ugu soo darto caafimaad darro marka waxa la doonayaa bulshadu inay muujiso wax la taaban karo oo la arki karo ku haboon oo lagu tilmaami karana ma jiraan wax la iska dhigi karana aan ahayn action sidii ragii iga horeeyay ay u sheegeen in la qaato si degdeg ah qofkii dhibaatadan abuuray in mudankiisa la marsiiyo si degdeg ah waxa dhacay waxay u dhacayaan obvious wax iska cad waa dawlad la'aan weeye waxa weeye xukun la'aan amar la'aan rules sharci la raaco oo dadka lagu xukumo haddii aanan la suubinin oo aan la yeelanin oo aanan ku dadaalin innaga takhtariinta ah in sharci la suubiyo dadka lagu maamulo oo xukunkiisii qof kasta la marsiiyo
waxaanu bedelmi mahayaan maalin ka dambaysana waa ka sii darayaan galmudugna ma ahayn Puntland ma ahayn wuxuu ahaa dhaqtar guud ee gobolka Mudug ka baxay marka alla waxaan u baryaynaa u weydiisanaynaa inuu Ilaahay ninkaas walaalkeena u naxariisto gacanka xaq baradishay runtii ma mudnayn Dr. Sakariye in la dilo ma mudnayn bal wuxuu mudnaa xabada asaga lagu dhiftay in asaga lagu waardiyo mudnaa waxa macquul ah qofka dilay ama dadka dilay inuu bukaankooda u adeegi jiray oo daawi jiray marka ma ahayn in lagu abaalgudo dil in lagu abaalgudo ma ahayn waxaan rabaa ka codsanayaa dhammaan reer gobolka Mudug hawshaas waa hawl ugu nugu ah inta sano aan gaalkacay ku noolayn anaga dadkii asalka ah gaalkacay ahayn gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo faahfaahiyay khasaarihii cadawga loogu geystay dagaalkii Awdeegle shirkeen jaraa'id markooda wuxuu ku saabsan yahay hambalyo iyo bogaadin aan u direeno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed halyeeyada qaran ee u dagaalamaya difaaca dalkooda diintooda iyo dadkoodaba inay difaacaan saan ognahay in saakito nimankii nabadiidka ahaa ayaa waxay isku dayeen in ay weerar ku soo qaadaan degmada Awdeegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayagoo carqaladeen iyo weerarkii ay soo qaadeenna aan ku guuleysanin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay 10 loobaana u dhigeen halkaas oo ay samar dambe aysan ku soo degdegi doonin haduu Ilaahay idmo in saan ognahay waxa meesha ka dhacday oo aan xaqiijinaynaa in ilaa iyo tiro 100 ku dhawaad ah oo ciidamadii ama nabadiidka dhalinyaradii ay soo qaldeen oo ay meesha ku soo haligeen ay ku dhinteen meeshaasi saan ognahay carruurtaasi waa carruur Soomaaliyeed waa dhalinyaro Soomaaliyeed maanta ay ka tageen aabe iyo hooyo soo korsaday in dhibaato ku soo maray in ayagiina ay intay tababar iyo afduub intay ku soo wateen kadibna ay ka bedeleen fikrad qaldan intay ka buuxsheen ay ku soo haligeen dagaalkaasi iyo sidii dhibaato ugu geysan lahaayeen dalkooda dadkooda iyo diintooda intaba halaag weyn ayaa saakay ka raacay in dhibaato weyn ayaa ku dhacday in jab weyn ayaa ka raacday oo aysan marnaba ka soo kabsan doonin in ilaa hadeertaan waqtigan la joogo firxadkooda iyo dhaawacyadii ay qaateen iyo meedadkii ay qaateen ayaa lagu daba socdaa laguna daba joogaa waxaana ballan qaadeena maamulka heer gobol hadaan anaga inaan arintaas gacanta ugu weyn aan ka geysan doono aan garab istaagi doono ciidamada deegaankaana ay diyaar yihiin in ay ka qayb qaataan difaacidda iyo xoreynta la xoreynayo nabadiidkan laga xoreynayo dalkeena in waxaan ballan qaadeena inaan noqon doono dadka ugu horeeya ee difaacaasi qayb ka noqda in maanta nabadiidka weerarada ay soo qaadayaan ay ka soo qaadayaan deegaanada kala duwan ee gobolka Shabeellada Hoose kuna soo qaadayaan deegaanada kala duwan ee gobolka kamida waxaan ballan qaadayna inaan meesha ay ka soo qaadaan weerarka aan ugu tagi doono aysan noqon doonin in lagu sugo degmooyinka iyo maxalla xarumaha dawladda ee maanta ay weerar ku soo qaadayaan in taas ayaan hawshaasi ayaan ku dhawaaqeynaa in ciidamada deegaanka iyo dadka shacabka deegaankana waxaan leenahay carruurtiina si kastaba waa lahayn lahaa maanta nimanka nabadiidka ama hogaamiyaashooda ah kuma ay dhiiran karaan in carruurtooda iyo kuwa ayaga dhaleen ay ku soo diraan dagaalada way dib uga dhigayaan waxbarasho ay u dhigtaan iskuulaad ay u dhigtaan in waxay ugu nool yihiin deegaano amniya oo nabada ay ugu nool yihiin carruurtooda laakiin carruurta ay dhibaatada iyo dabka xaabada uga dhigayaan waa carruurta Soomaaliyeed waa dhalinyarada Soomaaliyeed waalidiintooda si xoog inta loogu soo wado tababar loo furo oo lagu dhalin rogayo intaasi ayaa ku eegyahay warkeenii fiidnimo waxaan idin la socodsiinayay anigu Abshaari Yaasiin Maxamed waa inoo baahinta tan xigta